بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في الجول يا كده وضع الكرة وندى ورتال كر العادية لندرد وكان كداركم أسمع كل دون تان سين كحنا مبكم ده هرعنا ياتا وأسنين ترتيه كده نتتم إيه اللي تا بل ما دمدكم نواتي اللي تا وخيدا جواري فانديشن يولي بمركزية داخلشين يدرسي اللي يبغى القوس مركزي دنيا عبارة يسمى يستوكنول degmada Buur-Hakaba. Liibaan Axmed faahfaahiye. Hay'adda Jawari Foundation ayaa geegida raashinka diirsadii ku dhawaad boqolkiiba ee ku mata dadku nugul abaartada dareen saameeyay ku nool beledka Buur-Hakaba. Deegaanka ayaa qayb ka dadaalada markaasi lagu yareeyo dhibaatadii ka dhalatay abaarta dareen ku jirta deegaanka. Gudoomiyaha maamulka beledka Buur-Hakaba Ibrahim Maxamed Isaamo wax la wartay dadweynaha sheegay in deegaanka ay ka faa'iideysteen ku dhawaad boqolkiiba oo soo maxanagi Abdulaziz Jawari ayaa qofka dhiibay deegaanka geegmay baahna deeray boqol qoys raashinshe degmada Buur-Hakaba la geebay raashinkan may basadeen Abdulaziz Maxamed Usmaan Jawari ya basadi bedelshe wal khair qab Allah angeli ajar ya hasanad Allah kasi lana may baral gelin kuwene dhacdadii shalay dhidi ya eedan karaala gareeyana ku xognugo dawladii oo nin iswarsani jawaab degdeg ah ka bahas insha Allah sina Buur-Hakaba kooy doona arantana dawladda ka daba galaasnanki ka damboy inanki kaleeb dawladda ka daba galahayta may balana Abdulaziz eedan ku hogno walaa shalay kiidii raalaha boqolkiiba boqol raalaha eedan mahsanta dadkii ad walaaga handibti boqol ku goosada hadibtina hadna deeren dadka shalay markii ad irti oo walaaga aan reebana sidii ad koowdi niida hakeen ku goti oo intii ad boqol goos wal siida oo qoodada maadaama abaaro badan jiraan dhibaato badan jirta adhan gorotay hadana sidii hoobada hirti adan reebane sidii han dhibti danka mahasanta jazakallahu khayraka lana anta dhiidina iyo meel walba la ka daba gala insha Allah aad oo faraxsanta Buur-Hakaba kooy doonto taasna ka bishaaraysay hoo ilaahay aad oo qarashkiinka banwalkiinka bane kooy doonto aranti shalay diyaasina dawladda ka daba jarta waana dawladda ka daba seedaas marka may bakalana eedeedan ku hugna boqolkiiba boqol raala galeenga ku wadna ta ku qabata ma ta filadaanina ma insha Allah taala may balaha Abdulaziz una dhawa eedan ku hugna Soomaali dhawa eedan ku hunta marka raala galeenga kiin wadna walaalkay boqolkiiba boqol raala insha Allah wa billahi insha Allah biidin karim saxdib isma aragaytan degmada Buur-Hakaba insha Allah raashin la kibiyahay insha Allah raashinkaas oo ka socda raashinkaas oo ka socda Professor Abdulaziz محمد عثمان شيخ جواري هدي إلهي رب إن شاء الله بإذن الله كريم راشينك أسهدي بدي الله بقول قوسها بقول كاس قوس تسمى أرجعتنا وياك كم بقوسها تقول تبلانتون لسي هايو إن شاء الله بإذن الله كريم كل أجر حسنات إلهي كسي بلنا تنكلمت كل مذهب قدومي ومنا كبي ودردار كبي ما يقولي شلي إني سكوية فضاي كوية كاسي كلي الدون كل أمانة كهب بدن أمانة مرحلة وريك سنجرا معي دبعت هذا إن شاء الله نرابي مجرد إن شاء الله بروفيسور أدين مايك لنا وقت Buur-Hakaba هم باهت هلقي أفاسنا كوي كرت دي لأرهب تاسادين كبسم اللغاس ماذا هوينا الدواني أرهم بدل أوجاينا منا شيئان لهوسكلي لاجر ودهم كوفر قلبيد منا فرتو أفكوس كات والكوفر قلبيد جيل لهم فرق كرمله كوفر قلبيد كل جي أفكوس كات إن شاء الله إدار إدي ولا كستو هم عطي من جيس مصدر أنتون إن شاء الله سيلك حلي فدي مركز تنفرين هدي لهرب إن شاء الله ما أوجاس أنا إني جيج نبات كلا إنجرنا وأنا هدي لهرب راشين كيو بروفيسور كيبي فضاين كيبني كم بوسيط سنة رايتان إن شاء الله بإذن الله كريم deegaanka qayb ka dadaalada markaasi lagu gurmado dadka abaartada dareen saameeyay ku nool beledka Liibaan Axmed diita wartaga karlaad beledka Buur-Hakaba gobolka Baay xaflad la ka daafuray adeeg bajaaj cab oo markaasi isu kordhiya waa isbitaalka Tirow yala ka qowday magaalada Baydhabo oo istimeeyay faahfaahiye bulshadeena ogey kasta way caafimaadka iyo xafladan waa jirto la ka afaftigay adeega bajaaj cab oo uu soo kordhi Tirow Hospital iyo ka qabsoontay beledka Baydhabo aan koreen agaasimaha Tirow Hospital Muhdin Tirow yaa uu sharaxaad dheer u sukubi adeega bajaaj cab iyo muhiimadda uu sileeyay iyo wala uu ka saabsan iyo guutaantisba sida bajaajleyti oo ku faa'iideysado Quraan markii horta barnaamijku oo ka dalka daafurahay ujeedada uu kulahay wali waa in dadka la ka taageero in macaashka ku weydiima isbitaalka markii barnaamijkaas oo laga fikiri walbana la gorfay la hadalay oo maarnay insha Allah ku hadalay milkiilaha isbitaalka Tirow Dr. Isaaq Tirow sisan ka saasan waliba markaas ay maarnay insha Allah si geesan milan qaaday in barnaamijku la hirgelin oo bulshada la hirgelin
su-aalo markuu meelo kooltay waleetaa isbitaalka boqolkiiba kontonka markii la soo biyo adeegyada maarna $100 ma inka shaqeeyo macnaasha $5 walba kinka shaqeeyo $2 bar la soo dhiibas meena way kinka shaqeeyo kala barsho hatta walaal inka shaqeeyo $2 barkanta ku kooyaan bulshada wala isweydiiyaan waaye si udi magaalada isbitaalada bareysaleyn bareysyo inta badan wada sameeyay meelo inka badan waa magaalada dadka ka nool yihiin tusaale ahaan isin dhow hadii la ku bajaaj leeyahay in la mar walaal bajaaj ka taagay ku raaji al saaro sanari raaji meelo jeetin tusaale ahaan raajida madahna singo bareyska dadka badan ka sameeyay wala $5 oo kale $5 hoobalan kan adeeg isbitaalka $2 ku yaaban $2 ko reeb من لمراس دولار $2 $2 برايس فيكس برايس كميلا قال لا تخلك سعره $2 سبتالتي هو بجاج لك كاركاس ويد كول $2 بلش بديه من أمور مقالات هذا ودم ولا كلا سين سمعنا برايس كأو ولا كبارة وصالحان ولا سن كإسبتال كوري بقيم جواناي هذا بقي فري ولا إسبتال كتبته روبي بقي فري أو بيشد لك هذا يجو أو سفري لك هذا يجو ينهي أو جايب جارك كورو جايب تي بي ده كلا إسبتالتي هو فري واي بس لا لك بارك بس لا أنت دواء صوت لك دواء ولا واي مارني شيء أنت أسوأ واي كوا كلا كوسي برا جام أو إسبتال كبير marka adeegyadii guud ee isbitaalka biyaha ee walikin ka sameeyay tan boqolkiiba 50 oo special maarnay shaga discount ah oo bajaajadan gaareen marka barayska magaalada wali horumarad oo kasto ogdin meelo wali ka qorona marka wali waayo wal kasto wali ka baareen ajin $5 ma inaha $2 baras biyasa $2 weydii lama aan kala maran meelooyin ka badan su'aalan computer kolak saaray kala barji marka boqolkiiba madil kale kontonka marka wali waayo $100 laakiin kadeey konton la koofada macnaasha ma $5 laakiin kadeeyta lama barkay dibas aan hukuumadda martadii ha ku qayb galay munaasabadan iyo seeda handhawaayeen adeega bajaaja kaabe ee uu saa kordhiyay Tiro Hospital waa qiimo dhimiseedan bileeran lanka sameeyo dhammaanba bajaajleyta lankaas oo qaadada kaarka isdiiwaangeliyowka ee barnaamijkan baaritaanka hadii uu $5 rahay in $2 barbaxsho adeegi marka wuxuu noqonayaa adeeg jaban oo qofkii uu awoodi karo inuu inta tago oo check-up u sameeyo tusaale ahaan adeega meelaha ugu muhiimsan kamid ah hooyada iyo dhallaanka caruurta waxaa la yiraahdaa iyo hooyadu waa meelaha asaasiga u ah oo bulshada haddii xanuunsadaan bulshada dhan waxaa waaye saameyn ku yeelan marka inay haweenkii access heli karaan dhaqaatiirta inay u tagaan baaritaano heli karaan marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inay sii wadaan oo aysan ku ekaan bajaaj kaabe ay ku dari doonaan adeegyada kale macallimiinta sida hadda uu ka dhawaajiyo guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta dhaweeye oo kale hooyooyinka ururka leh oo kale in special case laga dhigo oo si gooni ayaga ruuxooda ay heli karaan dadka magaalada ah marka si fudud dadkii marka inay adeeg jaban helaan isbitaalkana waxaa la rabaa adeega uu bixinaa inuu ku helo customer badan marka inay bajaajleyda dhan isdiiwaan geliyaan oo ay si ay adeegaas uga faa'iideystaan dhammaantood isbitaalka la kaftamay marka boqolkiiba 50 uma sii ka badan yahay meelaha ma ilan mani badan marka may faday bajaajleyda inay qish ana si qishkaas oo marmar inay fursad aad helo korto inay oo boqolkiiba 50 boqolkiiba 100 fursad helo for example ma tsara ku qaadanay gaartinta asirmaas inay wali sheegayeen bajaaj badan ilata marka lamada bajaaj lama kaaran shal qaabay marka adeegay marka isbitaalka adeegay in sameeyay halkaar la boqolkiiba 50 markii la karaado kaarka hadana la baamana barnaamijkan may leeyahay koonfur galbeed bajaaj kaab markaan uu qobada barnaamijyo oo gobol badan la qabadi hamar sida Hargeysa amal laakiin koonfur galbeed markiin gooreytiyo la ka qobado dhammaan ani adeegyada ka hadalaya afka bajaajleyda gudoomiyaha bajaajleyda Daahir Maxamed Axmed ah faa'iidooyin iyo onleeyay kumada qof kasta bajaaj wada degay daroof badan ya haysada maadaama shaqaaleey badana shaqaaleeyinta bajaajyaalka lan alla lan iyo garaafaan badana mulkiilayaalka bajaajna badana ku saamiyaas daraadee Tiro Hospital barnaamijku saddeeshani eediyada handhawaan boqolkiiba eediyada ka faraxsanna way fadaane bajaajleyta ayan qaadanay ay masu ayan qaadanay ay masaalanki wal hadlay wala lagin suubiyatin ay masan qaadanay lanki wal hadlay oo tabar yar meeligeero lama boqol shan raajadan wal saaray lama $100 shan leeray boqol lay dhiibasa tamu maaye halku la hadlay ma ay masma ay masma may faylaha keera lisansi isbitaalka hadda geeradi isbitaalka noohadi an shaqeeyasi
la qobadi dalla roorti yaa isbitaalkii noo gadhi wal ii weeray odagii inwiinay bahadi hor fadhi kiindo ay isku baay geekii dhatan joogma leeray aniga miisna hariisado fayla isbitaal wal qobadaaw iirtana ta qofkii qof hameelina inbaa qofkii qof hasbaareeray meelay toose ilaahay kaarsi dhaweyaalka halka daro dhaweyaalka hanuun hamiin dhuumadaan hay ka daro aan ku horeeyay isbitaalka Tirow oo fursadan eed wanaagsan si bajaajyaasha oo magaalada ka dhagan bajaajyaasha mayba ku mid yihiin laf dhabarka dhaqaala magaalada Baydhabo ama guud ahaan koonfur galbeed marka war eed la handhawaayo waxyaabooyinka noocan oo bulshada takaafulkan ama social insurance la linka saqumada waxyaabooyinka bulshada koran gaada ku miday adduunyada horumartay midilkiin sheega warayo la hormareen wal kalama maqoo caqli badan maqoo karti badan maskantaas oo la dhalaaliyay oo haddana wala iska daradiya bini aadamka mid wala iska darada walna nis ogolaada markaas guuldeere war leen baahnayo lanka bajaajliga tumadi bajaaj usaarinyo unumadi baawarta noo dhoon inta badan wali nagadaana maamadii hadayna kole roogde taliyahana birooge inta badan ogoonga nagadaan aadaya wali waaye mati lanko kale leh waxyaaba una ka dhiyaanaya kumadato lankamadi ni dhowmuna ni justification kan koreyna rab yo ogoon toba lanka hubun oo taba si nagadaa mooshin laakiin isla waqtigaas ogoonga nagada markan saadal sheegay dadka oo feeleen dadka oo hunyiinto markan Tirow nang mahnage agaasiimje ay guutan istalk wali waaye wala la daawo tadado dad bini aadan oo walo eed ajaran la seen ku sii kama santin يعني لو جوجو يعني إسبتال هذا ما دام إسبتال قار له ليه وياهي يعني بالشدة إنه حلو سوء عليه وإحنا الله يقهذا يعني ما دام برايفت وياهي يقف وحنا الله يقهذا وإحنا ولو علينا يعني برامج كاس مركز وحنا نقضي برامج آدم مهمة أو يعني إيه هاي إسبتال كبرايفت كا إنه بالشدة يسوق سوء عليه يعني بجاج كا عم بجاز لها بس ما أنا سليه هاي وحبرن باكون جرو كلي معمل كأني فاهينا رجينا قيبنا نودي ميين هذا تاسوي تنتان لقدو مثلا ما يبغى مركزي حكون فكر تان يعني نقاسن هذا تاري أكلا بجالي مركون أنا لبعض بدنا كم لبعض بدنا كم نون ما يبغى مده ها شركة كم مده ترافق كم مده لبكو بجالي كان مكمل كم مده تاسوي نينو أسوأنا كافي فياسن تنكلا Tirow hospital derdara kedara bokol kebe shanga ko yalas tumunga sagalo shanga jaras farhad eedin wiin waa dhawaan bokol kebe bokol maasanta oran dareer aasaasiga Tirow hospital Dr. Isaaq Maxamed Tirow yowsa munaasabada ka sheegay inay muhiimada weyn iyo in la ta dhamaanba bulshada waana iyo barnaamijkan aan kordhiyay madiyo argan baahada lanqaba uniyo saaxiibadan markay iskaalanay barnaamijku bajaaj kaaba la rawiya la sheeni bajaaj kaaba sidii fahamteen ama maarta hore oo tormuudin sharaxay wali haytahay qofkun wali lan ka shaqeeya tiro kasta haato ya boqolkiiba konton isku dhiibe $10 lan ka shaqeeya $5 isku dhiibe shantaas macnaa shama meel cidla ma laakiin Tirow hospital ko ka faal qaadahay maadaama bulshada dadka in shaqeeyo ka muhiimsanay bajaajlaha adoo markuu wada wali fadaan inuu has diiwaan geliyo has waro fursadaas ku faa'iideysid bajaajlagaasi aan ka tala galnay wala isku dhiibahay bilaash ma laakiin in bulshada ka kaalmay wurina yoona kama hadnagaan dadka bajaajlayaalka iniyo wadankiisho idalsho ideegaansho ka sabreen oo tahriiban ku galna oo waalidiinta walwal ingelina qaar insin kumid ama maartay deegaanku ka noolayaan iyo hal koran bajaajka ama aan hal kornad wali danta qasabtay in dhaqaale weydiiyaan oo Liibiya la qabsado gurigiisho la haraajo ehelsho oo maartay dib badan jeeyo markuu
wali dhiirigeliyaan dhalinyarada oo maaragtay bajaajyaalka ah walbuuyin ka fadhiyaan bulshada adeeg faylaan haytan unun garabkiina surugna 300 oo bajaaj oo baydhabo ah oo 8 kalar leh yaa in ka faala qaadno fadaan oo ilaahay ah intaasayna ma ka ag qofka kala tala kala qorshe ah taas ku dul haaya laftateedii hadhowaayaan fikir ganacsi oo horumarin ka jarto iyadana kama hasantiin oo istimo wartal karlaadi baydhabo hay-adda samafalka ee Hormuud Salaam Foundation waliba 25,000 oo dollar markaasi ay ka wareejiyay xarunta horumarinta qoyska ee guriga Samo. Hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation iyo waliba 25,000 ku wareejiyay xarunta horumarinta qoyska ee guriga Samo taasoo laga guuriyo waana ku maalgeliyo shangoys oo kumada dhalinyarada gaba baahiya gaarka mashruucan iyo waliba hay'adda horumarinta fulida gibo kumada dadaalada joogtada ee hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo ka qaadadaas samatambiyoowka bulshada taakuleeyowga waliba danyartii waliba kobiyowka fursada nololeed ee dadka baahiya gaarka gaba munaasabada wareejiyowka lacagtan iyo waliba gobro ku ay mas'uuliyiinta Guraysimo iyo waliba la taliya ku dareer wasaaradda qoyska iyo waliba xuquuqul insaanka koreen waliba goobtu ka hadlay Cabdullaahi Nuur Usmaan gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaasoo sheegay inta lacagtan iyo ka koobanta lama qeybood oo shalay qeyble ka oros iyo dhalinyarada baahiya gaarka gaba iyo waliba qeyb shaqo abuur lanka sameeyo maanta halkan xafiiska Hormuud Salaam Foundation waxa aan guddoonsiinaynaa lacagdan 25,000 oo dollar hay'adda guriga Samo lacagtaas oo loogu talagalay in lagu aroosiyo shaqana loogu abuuro ilaa 5 qoys oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba barnaamijkaas oo qayb ka ah barnaamijka guur wadareedka oo ay soo qaban qaabiso hay'adda guriga Samo oo ka shaqeysa arrimaha qoyska iyo horumarkeeda sidaan ognahay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool dalkeena waxay ila nool yihiin duruufo iyo xaalado adag waxaan ku adkaataa qofka inuu wax barto inuu shaqeysto iyo inuu guursado sababta Hormuud Salaam Foundation ay u kafaalo qaaday gacanta uga hayso iskuulka indhoolayaasha ee Al-Nuur asbaabtaas ayaa ka mid ah inay helaan waxbarasho iyo nolol waxaan marka aan rabnaa ma ahan markii ugu horeysay oo arrintan guur wadareedkan aan kafaalo qaadnay qoysaska la dhisayo ee baahiyaha gaarka qaba hore ayay u dhacday sidoo kale aan u kafaalo qaadnay guurka iyo nolol abuurka 5 qoys kuwaasoo maanta ah reer degan qoys ah caruur leh lacagtan waxay isugu jirtaa qayb lagu aroosinayo oo guriga loogu dhisayo dadkan lamaanayaasha baahiyaha gaarka qaba iyo qayb shaqo loogu abuuri doono haddii aan la yiraahdo si ay noloshooda ay ugu maareeyaan ninkan halkan daagan Axmed Dege waxa uu kamid yahay ardayda wax ku baratay iskuulka indhoolayaasha ee Al-Nuur maanta waa aabo meel degan reer leh shaqeysta oo maamul ka ah iskuul ku yaala degmada Kaxda sidaas oo kale jiraan dhalinyaro aan iskuulka indhoolayaasha Al-Nuur ka soo saarnay wax ku soo bartay jaamacada ka baxay reerale oo shaqeysta marka muhiim u tahay in loo ogaado dadka baahiyaha gaarka qaba ha ahaadaan kuwa araggu ka maqan yahay ama mataqaana aan maqalku ka maqan yahay ama lixaadku ka maqan yahay waa dad kamid ah bulshada macnaha intii ay u baahan yihiin qof kale u baahan karti iyo dadnimo leh inta kale leeyihiin markaas aad ay muhiim u tahay in la garab istaago oo gacan laga geysto inay noloshooda ay u maareeyaan ama ay noqoto mid lamid ah dadka uu lixaadkooda u dhan yahay gudoomiye Guraysimo Ahmed Abshir Gedi iyo waliba uu ku mahadnaqay lacagtan Hormuud Salaam Foundation ka talagalay guur wadareedka 5 qoys ee baahiyaha gaarka qaba hana sano kumada 25 qoys oo la qorsheeyay inta sanadkan guur wadareedkan sameeya runtii farxad weyn ayay maanta noo tahay inaan ka gudoono hay'adda Hormuud Salaam Foundation
lacag dhan 25,000 dollar oo sanadkii labaad ama markii labaad ay uga qayb qaadanayaan gurwadareedka iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee naafada ah. Hormuud Salaam Foundation runtii dadaalka ay ka wada wadanka si guud iyo gargaarka ay samayso waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha u saaro. Gudoomiye Cabdullaahi oo hormuudka ugu yahay runtii Hormuud Salaam Foundation markasta oo aan ula imaano codsi ku saabsan gargaarka ummadda Soomaaliyeed si degdeg ah ayay codsigaas nooga aqbalaan waana dhaqan lagu yaqaano inay ka jawaabaan hadba baahiyaha markaas taagan bulshadeena meelo kala duwan ayay hay'adani wax uga qabataa. Dadka Soomaaliyeedna aad ayay ula socdaan runtii shaqooyinka quruxda badan ee wadanka oo dhan ay ka qabtaan Hormuud Salaam Foundation. waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idin saaro. Si guudna dadka Soomaaliyeed ee maalqabeennada ah ee ku bahoobay Hormuud Salaam Foundation iyo guud ahaan shirkaddan Hormuud iyo Salaam Bankiba waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed abaalka aad u gasheen iyo booska aad u bixinaysaan way idin og yihiin. waxaan leenahay ganacsatada kale ee Soomaaliyeed inay ku daysadaan oo runtii dadaalka ay sameynayaan ee nafhurnimada ah inay dhinacooda ka soo raacaan. bulshada Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa in cid walba oo wax u qabatay oo garab siisay duruufaha ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha adag inay ka warhayaan runtii garab iyo gaashaanna ay u noqdaan. Faadamo Maxamed Ali la taliye ka tirsan wasaaradda goyska iyo waliba xuquuqul insaanka iyo waliba sheegtay in hay'adda Hormuud Salaam Foundation way waliba xarunta goyska kuleysamayo baahiyan kaalan banaanayti oo dadka Soomaaliyeed ka mashquuleen. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation mashruuca u joognana oo yahay taakulayn ay hay'adda ay taakuleynayso mashruuca gurwadareedka oo ilaa 5 qoys gurigooda dhismahooda iyo maxaa la yiraahdaa shaqo abuurkooda ay kafaalo qaaday muasasada Hormuud Salaam Foundation. mana ahan markii ugu horeeyay wada ognahay horey ayay uga soo qayb qaadatay mashruucan. waxaan rabaa marka hore horta inaan u mahadceliyo howlaha iyo arrimaha khayrka ay mar walba ku howlan yihiin Hormuud Salaam Foundation oo soo magaceedu Hormuud u yahay hormuud ugu ah kaalmeynta dadka masaakiinta ah iyo maxaa la yiraahdaa dadka naafada ah sidoo kale dadka xanuunsan oo caafimaadka loo qaadayo intaba. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadku u saaro. gudoomiyaha Dr. Cabdullaahi si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa mar walba isku howla arrimaha bulshada iyo wax ka qabadkooda. saas si lamid ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maxaa la yiraahdaa xarunta Guryasama oo isku howshay shaqo ummadda Soomaaliyeed ay ka mashquushay amba ay maxaa la yiraahdaa daryeel la siinin oo ah arrimaha qoyska. qoysaskeenu wadanka markuu burburay saruhu say u burbureen iyo guryaha si ka daran ayay qoysasku nooga burbureen. sarihii waa la dhisay oo dabaqyaan taaganay laakiin arrimaha qoyska waxaa maanta Hormuud u noqotay Guryasamo oo Ustaad Axmed Geedi ugu horeeyay. runtii waxaan leenahay idinkana khayr Allah idinka siiyo howlaha awoodiin. bulshada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan barnaamijka gurwadareedka oo runtii ah arrin aad u fadli badan u khayr badan. guri la dhisaayo waxa way bulsho la dhisaayo gurigaas markuu dhisnamana Ilaahay ayaa irsaaqadiisa haayo. haddii shaqo loo sii abuuro way noolaanayaan sida aan aragno qoysaskii sanado ka hor guryaha gurwadareedka lagu aroosiyo maanta awlaadna haysta dhaqan shaqaysanaya. saas si lamida marka in lagu dhiirado mashruucan in la ballaariyo laga soo wada qayb qaato 5,000 waxa laga yaabaa shakhsi inuu waxaan macna lahayn ay uga baxdo dadka Ilaahay khayrka siiyo ka soo qayb qaata. sidoo kale waxaan dhihi lahaa ragga Soomaaliyeed mid qabow midka 2 iyo 3 iyo 4 gaari lahayd walaalaha 3 qof oo kamid ah ku taakuleeyo anka xul ayaama minkum ha laga run sheego labaysiga iyo saddexaysiga ha laga hormariyo dadka masaakiinta ah oo u baahan in loo guuriyo. Ahmed Xasan Dige oo ka hadlay afka dhalinyarada naafada gurwadareedka Guryasamo iyo waliba Sawin kumaanaga hay'adda Hormuud Salaam Foundation waliba xarunta goyska Guryasamo. aywa Ahmed Xasan Dige maamulaha iskuulka daryeel ee dadka argagax lagu baro degmada Kaxda ku yaala kana mid ah tiimka Guryasamo. marka Allah subhanahu wa ta'ala mahad iska leh maanta meeshan ku suganahay waa xarunta Hormuud Salaam Foundation
runtii Hormuud Salaam Foundation waa hay'ad Soomaaliyeed oo dadkeeda garab taagan dadka gaar ahaan duruufaysan waxlaaya badan oo ay qabatay oo maanta muuqda na way jiraan alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh maanta inay $25,000 kaga qayb qaadato barnaamijka gurwadareedka dadka naafada looga faa'iideynayana waa arrin kale oo qiimo badan ayada oo cid kale oo ugu horeysay shaqadan hadda socota aysan jirin oo ayada ay u noqotay irid fur 15 qoys oo sanadkan gurisamo u qorshaysan hadii Ilaahay yiraahdo inay u qabato dadka naafada gurwadareed inay 5 qoys ee ugu horeysay lacag 25,000 oo qayb qaadatana waa arrin muuqata oo aad u qiimo badan farxadna u ah dadka naafada waa dad karti leh wax qabad leh haddii caqabadaha hortaagan laga horwareejiyana hore u socon kara waxbarasho ahaan karti ahaan iyo waxqabad ahaan intaba marka waxaan rabnaa in bulshada kalena ay ku soo daysato dadka naafada ay ka gudbaan in ay tuugsadaan in ay isliidaan ay noqdaan dad waxqabad leh shaqaysan kara qofkii wax u qabanayana waxqabad loo hal abuur leh uu sameeyo aadna iyo aadna waxaan ugu mahad celinaynaa gudoomiye Cabdullaahi iyo teamka dhammaan Hormuud Salaam Foundation waxqabadkooda qiimaha badan ee mar walbaba ay bulshada ay u hayaan oo aan aaminsanahay malaayiin dollar inay sanad walba ku bixiyaan si ay ummadda Soomaaliyeed duruufaha kala duwan kuwa abaaraha kuwa fatahaada iyo caqabadaha kala duwan ku nool si ay qayb uga qaataan marka farxad gaar ah oo mahadsantiisa markii koowaad Hormuud Salaam Foundation iyo ku qayb qaadadaas barnaamijkan dhisme iyo waliba shaqo abuurka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo waliba horeey industry waanan ka maalgeliyay Shangoys oo geeka reer leh awlaadiya waliba nolol fayl maraxaya taageeradan iyo waliba muujiyaas sidii ka go'anta hay'adda Hormuud Salaam Foundation hojoogka goyskan waliba koobayoka fursadaha nololeed ee dadka baahiyaha gaarka qaba Bashir Maxamed Abdullaahi Arladi TV beledka Baydhabo hay'adda Bari iyo Maya Gus Foundation oo markaasay buugta manhajka dawladda markaasay deegaanka primary and secondary school amisha primary fafayas hay'adda khayriga ee Bari and Maya Gus Foundation yage ka booqeeyo bileeranka fulidii iskuulka weyn ee Waajid Primary and Secondary School ee degmada Waajid meelaasay ardayga iskuulada laga godoonsiya buugaag walbarasho dhameystiran buugaagta la qaybay waafaqsan manhajka rasmiga ee dawladda federaalka Soomaaliya ee fasalka 12aad oo fasalkan ka dambeeyay waybana aragday kasta la siiyay buugaagta maadooyinka soo qaado la ka bilaabo fasalka 1aad ilaa fasalka 12aad tan wayba fududeeyay doonta helowka qalab walbarasho iyo waliba koran qaadowka tayada walbarashada ardayda hay'adda Bari and Maya Gus Foundation oo maalgeliyo wasiirka wasaaradda Koonfurta Badda Abduqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo suruugteen shaqeeyasa taageero ku horumarinta walbarashada iyadoo mudnaan gaar ah siyaasadda ardayda macallimiintii guutaan goobo walbarasho qaar kumid ah waalidiinta iyo si weyn handhawaaya talaabadan iyagoo ka tilmaamay walbiinka daradoonta baahiyo walbarasho ee ka jira deegaanka saasaatoona mahad gaar ah jeedi wasiir Abduqaadir Umar walbanteeyay horumariyowka walbarashada degmada Waajid saasaatoona baaqan dari mas'uuliyiinta kale laha ku doorada degmada in iyo hakadaydan wasiir Abduqaadir taageerada ardayda iyo horumarinta aqoonta jiilka korahaya ee hadafka koowaad ay teeganta hay'adda Bari and Maya Gus Foundation Amisha Ibrahim wartel Karlaadi Muqdisho inta door gudoona doorka banaanka hadan fiirino ma kumada Turkiga oo markaas faahfaahin ku biyay waa markabka shidaal qodista ee soo indhandari Soomaaliya Turkiga waliba saaxadiisa Soomaaliya handare markab iyo qodista shidaalka ee markaasay gunta badda markaasay la magacaabo Kagri Bay taasoo wasiirka tamarta dalkaasi isu ka tilmaamay howlgalkii Korea markaasay Ankara baaritaan shidaal ay ka sameeyay banaanka ee gabadhiya waa Albarslam Bayraktar oo tala wada ka safeeyay daqiiqo taariikhiyan ka safeero ka saabsan dadaalada Turkiga ee baaritaanka saliidii waliba gaaskiyana sheeganay markabka cusub ee April Soomaaliya isu ka bilaabo doona waa qodista ceelka Uradwan markii Koreyti markabkana qodista guntubada waliba subiyay howlgal ku baxsan aaga badan yana waa Bayraktar xilli isu ka hadlay xafladda Koreya dekada waa taasiiku ee gobolka Mersin ee koonfurta Turkiga waliba sheeganay Kagri Bay isu dhawaan markaasi kabiir maraakiibta qodista Turkiga la filaanay markaasi Soomaaliya ku diiran qiyaasta 45 maalmood oo sanadkaas ka daray
inay isu galbi doona 3 markab oo ahaa markaasi dagaalka ciidan badda Turkiga Turkiga waliba higsaday inay soo markaasi saar 500 oo kun markaasi fuustay saliida maalintii ama usun dhakmaas markii la dira sanada 2028 kana Rector Sonar Rasi inay Ankara rajaysan iyo dadkaas markaasi la laabta ama lama laabta iyadoo la maro saxmiin iyo bahiliisi wala saaro qaybsi oo markaasi dalalka banaanka la galaas guud ahaan sanadkii warkiran dortor kaladan askay sindiris ay saaray leesan haytaan warqadom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh